abaari kolkay dhacday uume la isku shiday kolkii dumar iyo caruur lagaga tagay guryaha intii nagu caawisay caadul ku gargaar waxaan ku sugannahay deegaanka ka tirsan gobolka Gabiley oo la yiraahdo Lambar Waaqo deegaankan oo ah deegaanada ay abaartu aad ku saameysay halkan waxaanu keenay 45 qoys u keenay 45 cunto oo isugu jira bariis daqiiq saliid iyo sonkor sida wada aragtaan deegaanka 45 qoysan u qaybin halkan bay goobta taagan yihiin waxaan aad ugu mahadnaqaynaa dhalinyarada table 7 UK gaar ahaan magaalada London oo Ibrahim ka tirsan yahay oo deeqdan soo gaarsiiyay Mr Ibrahim waa fayeenka table 7 anaga oo ku sugan magaalada London dhawaan ninka Ibrahim deeqdan soo gaarsiiyay waxaan ku darsanay qurigii reerkiisa inaan deeqdan ka qayb qaadano marka shalay lacag baan ku ururnay dhalinyarada ka tirsan table 7 magaalada Hargeysa jooga lacagtu waxaan gaarsiinay lacag gaaraysa 4 ku dhawaad marka aad baan uga faraxsanahay waxaan leeyahay jazakallahu khayr dhamaantiin boqolooyinka cid kasta oo ka qayb qaadatay deeqdan inay soo gaarsiiso walaaladood u baahan waqtigan xaadirka ah bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa waxaan halkan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadkan maanta halkan isugu yimid Lambar Waaqo cadceedaas ilaa iyo maanta sugayay waxaan leeyahay marka ugu horeysaba ilaahay raaliha idinka noqdo waxaanu sidnaa waxa weeyaan waa gacan buuxis laakiin gacanta ilaahay baa weyn inuu ilaahay roob raxmad la idin shubo ayaan marka ugu horeysa horta idinku ducaynaynaa midda labaad waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa cid walba oo ka qayb qaadatay maanta raashinkan aan wadno khaas ahaan dhalinyarada reer table 7 magaalada London waan leeyahay jazakallahu khayran dadkiinii anigoo ka yimid London 4 cisho magaalada joogay Hargeysa maanta in aan kala soo qayb galo dadkeena walaalaheen biyo la'aanta iyo haraadka iyo baad la'aanta xoolihii ay ka dhamaadeen aad arkaysaan khaas ahaan dumarka iyo caruurta ay inta badan ku dhacdaa dhibaatadu waxaan leeyahay ilaahay ka dulqaada dhibaatada raggana waxaan oran lahaa tuuladan degan warbahalka caleenta ay inta jaadka iska dhaaftaan dumarkiina iyo caruurtiina la qaata dhibaato walba oo dhacaysa agtooda taagnaada insha Allah ta'ala waxaan ka baryaa inuu ilaahay idin barakeeyo dhamaantiinba waxaan leeyahay qurba joogta reer Soomaaliland dalkiini abaar xun baa ka taagan bari iyo galbeedba waxaan leeyahay loo gurmado dadka ha loo kaco waxa weeyaan inaga caruuraheena talaagadaha ayaa inoo buuxa guryaheena cuntadii way buuxdaa biyihii iyo qasabadihii baa inoo socda laakiin meeshan iska daa wax lagu qubaystee waxaad arkaysaa inaanu wax lacab aanay jirin waad arki kartaan hooyada uurka leh hooyada ilmaha haysa aabaha weyne da'da ah inanka dhalinyarada ay haraadka xoolaha laftoodii baan soo dhaafnay baahi badan baa dalka ka jirta waxaan leeyahay loo kaca dalka dadkiina u gurmada khaas ahaan waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa dhalinyarada reer table 7 ee dalka iyo dibaddaba joogta waxaan leeyahay ilaahayda barakeeyo ubadka ilaahay noo xafido aynu ka qayb qaadanno wax walba oo jira waxaan mikrofoonka kulli u yara gudbin doonaa bal dadkeenan maanta halkan iskugu yimid inkastoo cadceed kulushahay in aan qof walba aan hal su'aal wixii aad noo soo dhiibteen si aanu magaranaysaay aan u gudbinno waxaan aad u mahad celinayaa dhalinyaradii isxilqaantay ee lacagta soo ururisay ee xoogga isku saartay inay dadka walaalaheeda masaakiinta ay lacagta u soo ururiyaan waxaan reer Soomaaliland u sheegayaa haddii ay dadku isu tagaan oo ay $2 bixiyaan qof walba waxaan malaynayaa inaanu ay wax siin karayaan dad intan ka far badan annagoo ah gobolka Gabiley degmada Wajaale laanta Lambar Waaqo la yiraahdo halkan waxaan ugu mahadnaqaynaa dhalinyarada table 7 ee dalka Ingiriiska UK oo nagu deeqday raashinka halkan na hor yaala kuwaas oo waxaanu leenahay kuwii soo ururiyey iyo kuwii tacabka geliyey iyo kuwii fikirka gashaday
iyo kuwii na soo gaadhsiiyeyba ilaahay inuu ugu bedelo wax ka khayr qaba oo ballaadhan. waxaan idinku mahadnaqaynaa dhallinyarta Cable 7 ee la dhandegan qurba joogta ah. waxaan ugu mahadnaqaynaa deeqda ay na soo gaadhsiiyeen ee dadkooga abaaraysan sida ay u soo tabeen ay u soo xasuusteen ee bini'aadanimada iyo dadnimada leh waan idinku mahadnaqaynaa. idinka iyo intii kale ee idinla mid ah reer Soomaaliland ee hay'ad leh ee qurba joog leh ee dawlad leh dadkooga abaaraysan wixii ay tari karaanba inay taraan baan inta kalena aan ka codsanaynaa.